أولاً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada walaalaha Soomaaliyeed dhamaantiin gacmo furan iyo niyad saafi ku soo dhawaada channelkeena caafimaad channel. Haddii aad nagu cusub tahay subscribe-ka inoo saar gambaleelka furo si aad u noqoto daawadaha u horeeyo. Haddaad horey noola joogto waad mahadsan tahay. Soo dhawaada walaalaha quruxda badan, like iyo share comment-ina waa xigina. maanta waxaan ka hadli doonaa topic caafimaad ah, isqurxinna ah, waliba si dabiici ah. run ahaantii maanta waxaynu ka hadli doonaa sida saxda ah ee liin dhanaanta wajiga loogu qurxiyo. dad badan ayaa waxay aaminsan yihiin in liinta wajiga lagu qurxiyo. qaar badan ayaa waxay leeyihiin liinta ayada ayaaba dhibka iyo finanka noo keento. qaar waxay aaminsan yihiin liinta in ay iyada haaraha keento. balse maanta waxaynu ka hadli doonaa qaabka ugu saxan ee loo isticmaalo. ileen wax walba waxay leeyihiin qaab saxan. waxaan asoo waxtar leh, haddana haddii aadan qaabkii saxda u isticmaalin waxaa laga yaabaa natiijadii aad filaysay cagsigeeda inay kugu noqoto oo dhibaato ku keento. marka waa muhiim wax walbo qaabka loo isticmaalo in aad aqoon u leedahay oo aadan iska isticmaalin. qaabka saxda ee loo isticmaalo liin dhanaanta waxaa waaye liin dhanaanta sidaan ognahay marka hore waxay hodan ku tahay ama waxay qani ku tahay ama waxaa ka buuxa vitamin C. vitamin C-gu wuxuu kor u qaadaa maadada loo yaqaano collagen. maadadan collagen-kana waxay mas'uul ka tahay quruxda maqaarkeena alla ina siiye. vitamin C ayaa ka buuxda liin dhanaanta. vitamin C-gana wuxuu kor u qaadaa maada collagen la dhaho. collagen-tana waa maadada mas'uulka ka ah maqaarkan uu alla na siiyey in ay qurxiso. sidaa darteed waxay liintu ka caawisaa qofka in badan in madmadowga ka bo'o. qofka madmadowga ka bo'o. tusaale ahaan hadday wajiga nabraha ka haleeyeen, nabra kaa soo baxay, haddii ay kugu baaba'een oo kugu bogsadeen oo meeshii madmadow kaa noqotay, iyo hadday haaro wajiga kaa soo baxeen, iyo raadka ama saameynta ay kugu yeelatay finankaa soo baxay. waxay kaloo u fiican tahay dadka leh daldaloolada wajiga. dad waxaa jira wajiga ku leh dhibco yar oo daldalool ah. daldaloolkaasoo gala dhabanka, iyo qofkii raba midabkiisii oo qayirmay inuu soo ceshto. run ahaantii waxaa jiro dad cadaan u dhashtay oo dabiici ah oon kiimika ku keenin cadaantooda, laakiin duruufaha iyo danta iyo qoraxda iyo kuleylaha ay bedeleen. liinta dadkaas asal ahaan u dhashtay, annaga waxaan ka hadlaynaa wax dabiici. kiimiko idil kama hadleen. liinta dadkaas maqaarkoodii ayay u soo celinaysaa. dadka cadaay ama cadaanta u dhashtay ama xataa qofka asoo madow waxaa laga yaabaa hadduu isdaryeeli maqaarkiisa inuu sii qayirmo. marka maqaarkaagii asalka ah oo quruxda badnaa ayay ku soo celinaysaa liinta. sidoo kale liin dhanaanta waxay nuurisaa wajiga ayay nuurisaa, dhalaal ayayna u yeeshaa. waxayna kaa qaadaa unugyada dhintay. wajiga unugyada dhintay ee saaran ayay ka qaadaa liin dhanaanta, waxayna u yeeshaa dhalaal iyo iftiin oo wajigii waxay ka dhigtaa waji aad u qurux badan. sidoo kale waxay yareysaa laalaabyada maqaarka. gabowga kusoo degdega dadka aan gaarin aad ayay u yareysaa. waxayna u kordhisaa maqaarka wajiga iftiin iyo dhalaal. haddaba sidee sax ah oo loo isticmaali karaa liin dhanaanta? maxaase khalad ah? qaab saxan oo loo isticmaali karaa liin dhanaanta iyo qaab aan loo isticmaali karin. aynu ku bilowno marka hore. dadka horta waa laba nuuc. dadna wajigooda waa waji saliid ama dufan leh oo mar walba dadkaas wajigooda wuu shiifaa. waxaa u maleysaa mar walba inay dhididsan yihiin. dadna wajigooda waa waji qalayl ama waji angegan oo mar walba waxaa u maleysaa qofkaas busbus inuu leeyahay wajigiisa, ama ay sheegay caro oo kale in ay leedahay wajigiisa. marka dadka labadaas nooc ayay qaybsamaan. dad wajiga dufan ku leh ama saliid ku leh, ama dad waji angegan oo waji qalayl kale. ugu horeyn waxaan ku bilaabayaa dadka wajigooda dufanka ama saliidda uu leeyahay, waana dadka aad ugu nugul nabraha. dadka wajiga dufanka leh oo aan isticmaalin kiimiko. haddaad wajigaada dufan uu yahay ama saliid uu leeyahay, laakiin aad tahay qof dabiici ah oo aadan isticmaalin wax kiimiko, waxaad sameynaysaa si toos ah ayaad biyaha liinta
oo aan waxba lagu darin oo isticmaali kartaa. Biyaha liinta ayaad weel ku deeqsanaysaa, si toos ayaad wajigaada u marin kartaa, balse ugu badnaan 20 daqiiqo inuu ka bata ma aha. haddaad waji dufan tahay ama waji saliid tahay oo aad qof dabiici tahay oon kiimika isticmaalin, liin dhanaanta biyaheeda ayaad weel ku miiranaysaa, kadibna wajigaada ayaad marinaysaa adigoo waxba kale ku darin, laakiin yay ka badanin 20 daqiiqo. 20 daqiiqo kadib waa inaad iska meertaa, ugu badnaan 20 daqiiqo. 10 daqiiqo waa isaga dhaqirtaa, laakiin meesha aan la dhaafi karin waa 20 daqiiqo. halkaas waa dadka wajiga dufan kale. dadka wajiga qallayl kale waxay sameynayaan, waxaad soo qaadataa qaando yar oo malab ah iyo qaando yar oo ciir ah. ciirta waxaa loo yaqaanaa fadhi ama garoor ama yoogar, intaasba waa isku mid. waxaad ku daraysaa liin dhanaan ilaa 5 dhibcood. liinta ayaad dhibic ilaa 5 dhibcood ku sameynaysaa, waxaana wajigaada ku dhaafaysaa 10 daqiiqo. waa inta ugu badan ee ku marsanaan karta, waa 10 daqiiqo. dadka wajiga qaleelka ah waxay marsanayaan qaando yar oo malab ah iyo qaando yar oo ciir caana garoor ama fadhi oo isku mid ah saddexdaas, iyo liin dhanaanta waa 5 dhibcood. 1 2 3 5 1 2 3 4 ilaa 5 dhibcood ayaad ku samaysanaysaa. waqtiga ugu badan ee wajigaada marsanaan kartana waa 10 daqiiqo. wax walba waxaa wanaagsan timekii ha dhaafinin lagu dhaha inaad dhaafinin, maxaa yeelay waxaa laga yaabaa dhibaato inay ku keento waxtarkeedii sida aad u rabtay inaad u weyso. marka wax walba waxaa wanaagsan qaabkii loogu talagalay in loo maro si loo helo jawaabtii la rabay. ha eloobin in wajigii aad ka dhaqday liinta aad mariso wax dufan ah haddii aad tahay dadka wajiga qallalan, maadaama ay liinta angejiso wajiga. wax yar oo saliid ah in la iska badiyo lama rabo. saliid ayaad farta gelinaysaa, labadaada calaacal ayaad marinaysaa, kadib wajigaaga ayaad wax yar oo marinaysaa, maadaama ay liinta aad u angejiso wajiga. si aad gaashaan culus kaga gashaan qalaylka, aadna u heshaan liin dhanaanta faa'iidadeeda, ugana badbaadaan dhibaatadeeda. waxaa habboon oo ku filan hal mar in aad isticmaasho maalintii hal mar inaad isticmaasho, maalin dhaafna aad u marsato. maanta waad marsanaysaa hal mar, maalinta ku xigta ma marsanaysid, maalinta ku xigto ayaad marsanaysaa. natiijada liinta haddaba waxay la mid tahay sida wax kasta oo dabiici ah ma soo degdegto. yacni liin dhanaanta markaad marsato ma ku dhahay aniga maalinkaad marsato wajigaagii dhala ayuu noqonaya, wixii nabar ahaa way kaa ba'ayaan. sidaas ma aha. waxyaalaha dabiiciga sidaas laguma yaqaano, waxay u baahan yihiin sabar iyo dulqaad, laakiin waa wax la hubo oo maalintii aad iska daysa dhibaato kuu keenin. maalinkii aad marsato wajigaada qurux iyo shacni ayuu ka qaadayaa. haddaba arrintan waa muhiim. waxaa mamnuuc ah qof daawo boomaato ah isticmaalo inuu liin dhanaanta marsado. walaalayaal, haddii aad daawo boomaato isticmaasho ha isku marsanin liin dhanaanta. haddii uu daawadaas kuu soo qoray dhakhtar, daawadaada bogo kadib isticmaal liin dhanaanta. haddii uu dhakhtar kuu soo qorin oo aad adiga waxaad iska isticmaalayso kiimikaalaad isku cadaynayso uu yahay, iska jooji, sababta oo ah kuuma wanaagsano, mustaqbalkaaga dambe ayay ku dhibi doontaa. liin dhanaanta iyo kiimikadana waxaa ka dhaxayo falgal kiimika ah, taasoo kuu keeni karto in aad wajiga ka gubato. haddii aad boomaato isticmaasho ama dhakhtara kuu qoro ama yuusa kuu qorin, bataatan liin dhanaan lama isticmaali karo. haddii uu dhakhtar kuu qoray oo daawo ay tahay, dhammayso kadib liinta isticmaal. haddii uu dhakhtar kuu qorin, iska jooji. markaad iska joojiso kadib liinta marso, laakiin labadood haddii aad isku marsato wajiga ayaa kaa guban karo. sidoo kale liin dhanaanta marsashadeeda iyo qoraxda kala dheeree, maadaama ay liinta ka kooban tahay acid, dhibaato ayay keenaysaa marka aad qoraxdii usoo bandhigto maqaarkii aad liinta marisay. sidaa darteed waxaa habboon in habeenkii la marsado. waad ku mahadsantihiin walaalaha qaaliga ah sida quruxda badan ee aad inoola socotaan. insha allah maanta fiidiyogeenii aan kaga hadlaynay faa'iidada liin dhanaanta iyo qaabka ugu saxan ee loo isticmaalo wajigana loogu qurxiyo halkaa ayuu noogu egyahay. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.